شيف عقل باشا اسمه يوسف ayaa ka hadlay xariga cuqaal maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Hargeysa. شيف عقل باشا اسمه يوسف oo waramay Hawnaag News ayaa sheegay in xariga cuqaashin uu yimid kadib dalab ka yimi beesha ay ka soo jeedaan oo dhawaan caleema saaran doonta hogaamiye dhaqameed cusub. Sidoo kale waxa uu soo bandhigay waqtiga ay dib xorriyadooda u heli doonaan. Su'aashii ugu horeysay weydiina waxa ay bal inuu ka waramo sababaha keenay xariga cuqaashan waxaanu ku jawaabay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. horta xariga cuqaashaas waxa keenay sabab ay iyagu keensadeen. sababta ay keensadeen waxa weeyaan 16 bishii 9aad 2017 ayaa beesha Muuse Abukar waxay isugu tagtay meesha la yiraahdo Habasweyn. waxaana go'aan ku gaareen boqorkii reerka oo xanuunsaday oo muddo 12 sano xanuunsanaa in wiil uu dhalay oo la yiraahdo Maxamed Boqor Ciise in la caleema saaro 2 bilood iyo barka bacdi. qoladan xirxirani waxay hormuud ka ahayd arrinkii nooca ahaa nimankii ku dhawaaqay bay ahaan in 2 bilood iyo barka bacdi la caleema saaro doono wiilka uu boqor ku dhalay. isla markaa sidaas lagu heshiiyay oo beesha Muuse Abukar oo dhamay heshiis ku gaadhay arxa iyadoo xalka marayo ayaa 2 bilood iyo barkii lagu guda jiro raggii go'aan ka gaaray oo ay hormuud u hayaan labadan ina xiran iyo qaar kale oo la diiday ayaa haddana u soo cumaamadeen nin kale oo beesha ka tirsan oo la yiraahdo Axmed Cali Muuse waraaqay u soo qoreen waxay dhahaan ninkaas boqorkii reerka matalaya taasi oo ahayd isku dil iyo muxuu isku horkeen beesha dhexdeeda. arrinkaasi dabadna isku dilkii uu dhacay ilaahay ma hadii horta dil dhimashay ma dhicin laakiin dil waxa culus baa dhacay xagga ilaahay iyo anaga oo ku kala guntanay darteed ayuun baanay dhimasho ku iman oo anaga ku kala guntanay dabadeedna arrinkaas oo halka maraya ay haddana isla raggii go'aan ka gaaray ayaa waxay u soo cumaamadeen nin kamid ah imka labada nin ee xiran oo la yiraahdo Saciid Cabdi Jaamac ay haddana u soo cumaamadeen oo yiraahdeen waxaan wuxuu noqonayaa boqorkii reerka. arrintaasi oo ahayd arrin aad u yaab badan dabadeedna beesha Muuse Abukar way salagtay waxay go'aansatay beesha Muuse Abukar isu dhami in nimankan la xidho maadaama ay meel kaga dhaceen sharaftii reerka karaamadii reerka iyo sharaftii ay lahayd boqortooyadu. waxa jirta in labada caaqile haatan xidhan ay kamid ahaayeen cuqaasha gobolka Maroodijeex isla markaana ay haysteen kaadhirkii wasaaradda arrimaha gudaha. wararku waxay sheegeen inaad qorsheynaysaan inaad kaadhkaasi ka qaataan arrimaha maxaa ka jira? horta marka hore nimankan iyaga is caleema saaray beeshu marka horeba soomay dooran annagu cid ay marka hore cuqaal u ahaayeen garan bamayna horta sababtoo ah nin haysta nin ay beeshu caleema saartay oo ay u garatay inuu noqdo caaqilkii reerka kuma jiro nin qoro warqad loo xariiqay ma jiro iyagu baa is caleema saaray kaar kale wasaaradda arrimaha gudaha baa siisay annagu sabab ay ku helaan ma garanayno laakiin marka horeba niman beeshu dooratay ma ahayn maadaama ay beeshii kula soo dhex noqdeen kaarkoodii ay fadqalada ka dhex bureen waa noo go'aan in kaarka laga qaado. goormaad caleema saaraysaa marka boqorka waxaan caleema saarnaa insha Allah hadii lahayd 27 bisha 9aad 2018 way naga xigto 5 cisho ka bacdi caleema saarnaa hadda la dhaha. goorma idagana idin qorshaysan markaan xorriyadooda u soo celisaan oo sii deysaan? waxaan xorriyadooda u sii deynayna markaanu ka gudano dambiga ay beesha ka galeen. Abdirsaaq Good Nuur, Hawnaag News, magaalada Hargeysa.